balqiyaas maamul muddo 10 sano ah ku naaloonaya inuu yahay awoodda military ee ugu weyn bariga dhexe istiraatiijiyadiisa amni ku dhisay duulaan qaadid gaashaan difaac ah oo casri ah iyo taageerada aan kala go'o lahayn ee uu ka helayo xulafadiisa ugu weyn ee Mareykanka laakiin maanta wajahaya walaac cusub oo aan ka imaanaynin Iran Hezbollah Hamas iyo Xuutiyiinta Yemen laakiin ka imanaya dawladda aan la loodin ee Turkiga haddaba sidee ayuu Turkiga muddo kooban ugu noqday quwad military oo soo wicisay indhaha Israa'iil maxaa ku jira warbaahinta Israa'iil ay ku tilmaantay mid walaac weyn dhalisay haddii Turkiga sii wado kobaca awoodiisa ciidan sidee ayay taasi u saameyn kartaa isu dheelitirka awoodda ee gobolka bariga dhexe su'aalahaas iyo kuwa kale oo muhiim ah waxaan ku eegaynaa tabinteennan Tafaftid Media ee soo dhawaada markale kuna wanaagsan magacaygu waa Abubakar Maxamed haddii ay tahay markaagii ugu horeysay ee aad daawanayso Tafaftid Media waxaan ka rajaynayaa inaad ka mid noqoto bahda nagu xiran saaxiibada la wadaagto isla markaana aad aragtidaada ka dhiibato qaybta faallooyinka ee commenteska aan toos u abaarno tabinteena warbaahinta Israa'iil ayaa toddobaadyadii u dambeeyay si aan caadi ahayn uga faalloonaysay kobaca awoodda military ee Ankara wargeyska Maarif ayaa daabacay warbixin ballaaran oo sheegaysa in hoggaanka amniga Israa'iil uu Turkiga u arko khatar istiraatiiji ah oo sii kordhaysa maxaa sababay in Turkiga lagu tilmaamo khatar ka weyn Iran sideese Ankara ugu guuleysatay inay muddo kooban ku dhisto awood ciidan oo soo jiidasho leh daqiiqadaha soo socda ayaa si qoto dheer u falanqeynaya xogta tirooyinka iyo isbedelada dib u qaabeynaya khariidada awoodda ee gobolka bariga dhexe si loo fahmo sababta warbixintan u dhalisay dooda ballaaran waa in marka hore la eega xaaladda siyaasadeed ee Israa'iil ku sugan tahay muddo dheer maamulka Israa'iil waxa ay ku tiirsanaayeen Mareykanka oo ahaa xulafadooda ugu dhow gaar ahaan dhinacyada hubka sirdoonka iyo damaanad qaadida amniga laakiin sida uu qoray wargeyska Maarif waxa soo baxay calaamado muujinaya in heerka isfahamka u dhaxeeya Washington iyo Tel Aviv uusan ahayn sidii hore warbixintu waxay tilmaamaysaa in madaxweyne Donald Trump uu arrimo gaar ah ka qaatay mowqifyo aysan Israa'iil ku qanacsanayn gaar ahaan kuwa la xiriira amniga xuduudaha waqooyi iyo heshiisyo xabad joojin oo ay Tel Aviv u aragto inay faa'iido u leeyihiin kooxo ay cadow u aqoonsan tahay taas ayaana dhalisay su'aal culus oo gudaha Israa'iil la iska weydiinayo haddii xulafada ugu awoodda badneed aysan mar kale diyaar u ahayn inay si buuxda u daboosho baahiyaha amniga Israa'iil maxaa dhici kara haddii mustaqbalka Turkiga noqdo quwad si toos ah cadaadis ugu saarta gobolka warbixintu waxay sheegaysaa in Tel Aviv ay bilowday inay wajahdo xaqiiqo cusub taageerada Mareykanka wali waa tiirka ugu weyn ee amniga Israa'iil balse mar dambe looma sii arkayo damaanad dabooleysa xaalad kasta isla muddadaas Turkigu waxa uu si aamusnaan ah u waday qorshe ballaaran oo lagu horumarinayo warshadaha difaaca inkastoo dhaqaalaha Turkiga uu marar badan la kulmay caqabado Ankara kama aysan hakan maalgelinta tiknoolajiyada militariga natiijadana maanta waa mid muuqata sida lagu sheegay warbixin ku dhawaad 80% qalabka difaaca ee Turkiga waxa lagu soo saaraa gudaha wadanka taasi waxay ka dhigan tahay in Turkiga uusan ku tiirsanayn oo kaliya hub dibadda laga keeno balse uu noqday dal soo saara horumariya isla markaana dhoofiya qalab militari oo casri ah horumarkaas warshadeed ayaa saldhig u noqday kobaca awoodda ciidamada qalabka sida ee Turkiga marka laga hadlayo xuduudda ciidan Turkigu wuxuu leeyahay ciidanka labaad ee ugu weyn isbahaysiga NATO waxaana ka horeeya oo kaliya Mareykanka ciidankiisa joogtada ah waxa lagu qiyaasaa ku dhawaad 480,000 oo askari waxaana garab taagan 100,000 oo askar kayd ah oo loo yeeri karo marka loo baahdo dhanka awoodda dhulka Turkiga waxa uu leeyahay ku dhawaad 2,200 oo taangi oo ay ku jiraan taangiyada casriga ah ee Leopard ee Jarmalka laga sameeyay iyo taangiga gudaha lagu farsameeyo ee Altai kaas oo Ankara u aragto astaan muujinaysa horumarka ay ka gaartay warshadaha difaaca laakiin dagaalada casriga ah kuma eka dhulka oo kaliya maanta awoodda cirka ayaa noqotay qodobka go'aamiye natiijada dagaal badan waana halka uu Turkigu ka sameeyay horumar si weyn u soo jiitay indhaha dunida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa noqday astaanta ugu weyn ee horumarka military ee Ankara sanadihii u dambeeyay xukuumadda Ankara waxay si weyn u maalgelisay soo saarista diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn kuwaas oo magac ka sameeyay goobaha dagaalka ee kala duwan diyaaradda Bayraktar TB2 ayaa si gaar ah u noqotay astaan caalami ah kadib markii lagu arkay dagaalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kuwii ka dhacay Nagorno-Karabakh Liibiya iyo Ukraine guulihii lagu sheegay inay ka gaartay goobahaas dagaalka ayaa sare u qaaday sumcadda warshadaha difaaca ee Turkiga
iyadoo maanta diyaaradahan loo dhoofiyo in ka badan 34 wadan oo ay ku jiraan dalal ku yaala khaliijka iyo Afrika. sida ay sheegtay warbixinta Maarif, Israa'iil oo muddo dheer ku faani jirtay awoodeeda cirka waxay si dhow la socotay horumarka ay gaareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga. sidaas oo ay tahay haddana diyaaradahaasi oo kaliya ma aha awoodda Ankara ku faanayso. ciidamada cirka ee Turkiga waxay sidoo kale haystaan ku dhawaad 200 oo diyaarado dagaal kuwaas oo badankood yihiin nooca F-16 waxaana garab socda diyaarado qumaatiga u kaca oo weerar qaada iyo nidaamyo difaac oo heerar kala duwan leh. nidaamyadan ayaa loogu talagalay inay ka hortagaan weerarada cirka isla markaana xoojiyaan awoodda difaaca ee wadanka. hase yeeshee warbixinta Israa'iil waxay sheegaysaa in haddii uu dhaco isku dhac toos ah halista ugu weyn aysan ka imaan doonin oo kaliya dhulka ama hawada. waxay tilmaamaysaa in awoodda badda ee Turkigu tahay arrinta ugu walaaca badan. ciidamada badda ee Turkiga waxay haystaan 14 gujis oo casri ah, maraakiib dagaal iyo markab qaada diyaaradaha qumaatiga u kaca. maraakiibtan ayaa si joogto ah uga howlgala bariga badda Mediterranean-ka halkaas oo ay ka ilaaliyaan danaha istiraatiijiga ah ee Ankara. sida lagu sheegay warbixinta, awoodda badeed waxay siin kartaa Turkiga fursad uu ku saameeyo marino ganacsi iyo dhaqdhaqaaqyo military oo muhiim u ah gobolka. laakiin xuduudda Turkiga kuma koobna hubka oo kaliya. waxa si weyn u kordhay joogitaankiisa military ee ka baxsan xuduudihiisa. sanadihii u dambeeyay Ankara waxay dhistay ama xoojisay saldhigyo iyo joogitaan ciidan oo ku kala yaala Qatar, Soomaaliya, waqooyiga Qubrus, Liibiya iyo Suuriya. waxaa intaas dheer howlgallada joogtada ah ee ciidamada Turkigu ka wadaan waqooyiga Ciraaq. marka la isku geeyo dhammaan goobahaas waxa muuqata in Turkiga uusan mar dambe sii ahaanaynin mid ku kooban difaac gudaha dalkiisa ah, balse uu yeeshay saameyn military oo si tartiib ah ugu fidaysa gobollo kala duwan oo dunida ah. aragtida maamulka gumaysiga Israa'iil fiditaankan wuxuu ka dhigan yahay in Turkiga uu sii ballaarinayo awoodiisa istiraatiijiga ah ee gobolka. hase yeeshee qodobka ugu weyn ee soo jiitay dareenka warbixinta Maarif wuxuu ahaa horumarka Turkigu ka sameeyay gantaalada riddada dheer. warbixintu waxay xustay in Turkigu dhawaan shaaciyay gantaal ballistic ah oo gudaha wadankiisa lagu farsameeyay kaas oo loogu magac daray Yildirim Khan. sida lagu sheegay warbixinta, gantaalkan ayaa leh astaamo farsamo oo si weyn u soo jiitay indhaha khubarada militariga. waxaa lagu sheegay inuu gaari karo masaafo dhan 6,000 oo kiiloomitir, taas oo aragti ahaan ka dhigaysa inuu gaari karo dhulalka ballaaran oo ku yaala bariga dhexe, Yurub, qaybo ka mid ah Afrika iyo Asia. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in gantaalka uu ku socon karo xawaare u dhaxeeya 9 ilaa 25 isla markaana uu qaadi karo madax qarxa oo miisaankiisu dhan yahay 3,000 oo kilogram. haddii tilmaamahan farsamo ay noqdaan kuwa si buuxda u hirgala, warbixintu waxay ku doodaysaa in nidaamyada difaaca cirka ee casriga ah ee Israa'iil ay wajihi karaan caqabado cusub. sababtaas awgeed Maarif waxay ku tilmaantay horumarkan mid wax ka bedeli kara soo dheelitirka awoodaha military ee bariga dhexe. markii warbixinta la baahiyay, dood xoogan ayaa ka dhalatay baraha bulshada iyo goobaha falanqaynta siyaasadda. dad badan ayaa u arkay in ay muujinayso heerka walaaca amni ee ka jira gudaha Israa'iil, halka qaar kalena ay ku doodeen in warbixintu ka tarjumayso isbeddelka dheelitirka awoodda ee bariga dhexe. qaar ka mid ah dadka ka falceliyay warbixintan ayaa ku tilmaamay mid muujinaysa sida Israa'iil ay uga walaacsan tahay kobaca awoodda military ee Turkiga. kuwa kale waxay ku doodeen in Tel Aviv ay isku dayayso inay sharaxaad ka bixiso isbedelada ka socda gobolka xilli ay wajahaysay caqabado amni iyo siyaasadeed oo isa soo tarayay. dhanka kale waxaa jiray dad u arkay in warbixintu ay buunbuuninaysay awoodda Turkiga, iyaga oo sheegay in awoodda military aysan kaligeed go'aamin natiijada iska hor imaad kasta, balse ay jiraan arrimo kale oo ay ka mid yihiin xulafada caalamiga ah, dhaqaalaha, tiknoolajiyadda iyo go'aamada siyaasadda. si kastaba ha ahaatee, hal xaqiiqo ayaa si isa soo taraysa u soo ifbaxaysa. waa in bariga dhexe uu galay marxalad cusub, marxalad ay quwadaha gobolka si xowli ah u kordhinayaan awoodooda military, u ballaarinayaan saameyntooda siyaasadeed, isla markaana dib u qaabeynayaan istiraatiijiyadahooda amni. Turkigu wuxuu sii wadaa maalgelinta warshadaha difaaca isagoo yareynaya ku tiirsanaanta hubka dibadda laga keeno, isla markaana kor u qaadaya wax soo saarkiisa gudaha. Israa'iil dhankeeda wali waxa ay ka mid tahay kuwa ugu horeeya dunida ee dhinaca tiknoolajiyadda military, sirdoonka iyo nidaamyada difaaca hawada. taas macnaheedu ma aha in labada dhinac ay ku wajahan yihiin dagaal toosa, balse waxa ay muujinaysaa in tartanka istiraatiijiga ah ee u dhaxeeya quwadaha gobolka uu garay marxalad cusub. su'aalaha wali taagan ayaa se ah, ma sii xoogaysan doonaa tartanka hubka ee gobolka bariga dhexe? ma sii ballaaran doontaa saameynta Turkiga ee gobolka? mise isbedeladan waxay horseedi doonaan dheelitir cusub oo awoodda gobolka ah? jawaabaha su'aalahan waxa bixin doona waqtiga iyo dhacdooyinka soo socda, laakiin hal arrin ayaa maanta muuqata. khariidada awoodda ee gobolka bariga dhexe ma aha sidii ay ahayd 10 sano ka hor. isbedelo waaweyn ayaa socda,
quwadihii hore waxay dib u eegayaan istaraatiijiyadahooda quwadaha soo baxayana waxay sii xoojinayaan awoodahooda taasina waxay ka dhigaysaa gobolka mid wali ah goob ay ku tartamayaan danaha siyaasadeed kuwa military iyo saameynta juqraafiyeed haddaba daawade adigu sidee u aragtaa ma kula tahay in kobaca awoodda military ee Turkigu si dhab ah u bedeli karo isu dheelitirka awoodda ee gobolka bariga dhexe mise waxaad aaminsan tahay aragti taas ka soo horjeeda ra'yigaaga noogu reeb qaybta faallooyinka ee commenteska haddii muuqaalkan uu ku siiyay xog cusub iyo aragti ka duwan tii hore ha ilaawin inaad like saarto sidoo kalena waxaan ka rajaynaynaa inaad ka mid noqoto bahda nagu xiran isla markaana la wadaagto saaxiibada intaanu dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan